Ninkan askari ayaa dilay askartii ugu badneed ee Yuhuudda. Askari Masaari ah oo laayay askar iyo saraakiil fara badan oo Israa'iiliyiin ah. Sheekadii ula yaabka badneed iyo sidoo kale xasuuqii loo geystay Israa'iil. Muuqaalkan waxaan kugula wadaagayaa sheeko la yaab leh. Askari geesi ah oo u dhashay Masar iyo sidoo kale ciidanka Israa'iil. Askari Masaari ah oo lagu magacaabo Ayman Maxamed Xasan ayaa ku sugnaa hawshiisa ilaalinta xuduudka Masar. waxa uu joogay Raysal Niqaab oo ku taala dooxa Waadi al-Qamar. Waa meel ka mid ah dhabaha ugu dambeeya ay Masar ku xadayso dhulka ay Israa'iil gacanta ku hayso. Intii uu ku jiray waardiyihiisa maalintii 5 Oktoobar 1990 oo ku beegneed bilowgii dabaaldegyada guusha dagaalkii Oktoobar, Ayman hortiisa waxaa ka soo baxay askari Yahuudi ah oo gaari soo dhigtay kadibna u soo laabtay dhulka Masar isagoo oo kabtiisa ku tirtiray ciidda Masar. Tallaabo loo arkayay gaf iyo kicin toos ah oo lagu xadgudbay karaamada iyo dhulka Masaarida ayay ahayd ficilkaasi. Markii askari Yahuudiga ah sidaasi sameeyay waxa uu la jeeday fariin xanaaq iyo hanjabaad ah. Adiga iyo dalkaada waxaad la mid tihiin kabtayda qaybteeda hoose ayuu ku yiri. Ayman markii uu arkay ficilka askarigaasi si degdeg ah ayuu ugu tagay taliyihiisa waxa uuna ugu warramay wixii dhacay. Taliyihii waxa uu ku yiri waa yahay Ayman waad isoo ogeysiisay anna waxaan wacayaa oo u gudbinayaa taliska dabadeedna waa la maareyn doonaa arrintaasi. Laakiin sidii ay arrintii ku ekayd waxba lagama qaban. 3 maalmood kadib 8 Oktoobar 1990 waxaa dhacay xasuuqii Masjid al-Aqsa ay ku shahiideen 21 Falastiiniyiin ah halka 150 kalena lagu dhaawacay. waxaana ficilkaasi sameeyay ciidamada Israa'iil. Ayman weli waxa uu sugayaa jawaabta taliyaha isaga oo rajeynaya in taliyihiisu uu soo diro fariin uu ku leeyahay arrintii waa la xaliyay. Si kastaba ha ahaatee waqtigu waa uu isguray. 9 Oktoobar isagoo oo ku jira waardiyihiisa mar kale waxa uu arkay isla askarigii Yahuudiga ahaa oo hortiisa taagan. Askariga ayaa albaabka gaariga ka furay waxaana ka soo degay askariyad Yahuudiyad ah. Labadooduba waxa ay gacanta ku haysteen calanka Masar. Dhulka ayay dhigeen kadibna waa ay ku istaageen waxayna ku xadgudbeen calankii Masar. Markii uu arkay Ayman ficilka ninka waxa uu dareemay caro iyo ciil waxa uuna hoosta ka xariiqay in markaan ay la gudboon tahay inuu argoosto. Bilowgii dhacdada Ayman waxa uu si go'aan adag ku gaaray in kaligiis uu beegsado oo uu dilo askariga Yahuudiga ah si uu uga arguto aflagaadadii labada mar loo geystay calanka Masar isla markaana ugu huuliyo oo ugu argudo shuhadada Falastiin. Hase yeeshee Ayman waxa uu go'aansaday in argusidiisu ay noqoto mid ballaaran isaga oo damacsanaa inuu dilo askar badan oo Israa'iiliyiin ah. Arrintu waxa ay u baahneed qorshe iyo diyaar garow taxaddar leh maadaama uusan hal qof kaliya ku filnayn hawshaas. Xitaa asxaabtiisu ma ogeyn in qorshahaasi uu wado. Ayman waxa uu wajahay dhowr dhibaato oo waaweyn. Dhibaatada koowaad waxay ahayd xaaladiisa caafimaad. Ayman waxa uu markaasi ka soo baxay qaliin waxaana taliyihiisu u diray aagga si uu u nasto jimicsiyada iyo howlaha culusna faraha uga qaado. Sidaas awgeed awoodiisa jir ahaaneed waxay ahayd mid aad u hooseysa taasoo ka dhigtay inuusan u diyaarsanayn xaalad kasta oo lama filaan ah. Dhibaatada labaad waxay ahayd helitaanka hub iyo rasaas. Rasaasta uu haystay kuma filnayn howlgal ballaaran oo noocaas ah. Dhibaatada saddexaad ayaa ahayd inuusan si toos ah uga tallaabi karin dhulka Israa'iil isagoo aan haysan qorshe cad maadaama haddii uu sidaas sameeyo isla markiiba la dili karo. Taasi waxay ku qasabtay inuu bilaabo sahmin iyo kormeer taxaddar leh si uu u barto dhaqdhaqaaqa askarta, gaadiidkooda, baska ay ku safraan iyo xilliyada ay shaqada ku jiraan ama fasaxa ay uga maqan yihiin goobta. Waxa uu si gaar ah ula socday jadwalka askarigii kibirka badnaa ee Yahuudiga ahaa ee uu doonayay inuu dilo oo uu ka argudsado. Markii uu dhameeyay qorshihiisa waxa uu bilaabay fulinta. Waxa uu bilaabay inuu sare u qaado xirfadiisa jir ahaaneed. Waxa uuna bilaabay inuu maalin kasta ordo 15 kiiloomitir muddo 45 maalmood ah. Intii lagu jiray muddadaasi Ayman si qarsoodi ah ayuu ula socday dhaqdhaqaaq kasta oo askarta Israa'iil gawaaridooda baska ay saaran yihiin. Wuxuu buug yar ku samaystay jadwal maalinle ah wuxuuna ku qoray daqiiqad kasta iyo ilbiriqsi kasta ay marayaan wadada si waqtiga howlgalka iyo wax walba ay u noqdaan kuwa sax ah. Markii la gaaray maalintii fulinta waa uu fasax qaatay waxa uuna aaday qoyskiisa si uu u macsalaameeyo mid wuxuu bixiyay deymihii lagu lahaa wuxuuna aabihiis u qoray fariin u qornay sida tan: ha igu xisaabtamin aabe waxaan Ilaahay agtiisa tagayaa anigoo shahiid ah
maalintii howlgalka Ayman ma uusan haysan hub iyo rasaas intii uu u baahnaa. Wuxuu wajahay laba doorasho midkood inuu qaato: inuu si qarsoodi ah u galo qolkii hubka si halkaasi uga soo qaato hub iyo rasaas, ama haddii taasi u suurageli weyso inuu si qasab ah saaxiibkiisa waardiyaha ahaa u siiyo hubka, xitaa haddii ay ka dhalan karto dagaal iyo gacan ka hadal. Inkastoo doorashada labaad ay ahayd halis weyn, haddana Ayman waxa uu rumaysnaa in Ilaahay garabkiisa yahay. Ugu dambeyntii fursad dahabi ah ayaa soo baxday. Taliyaha ayaa yimid, wuxuuna mid ka mid ah askarta ku amray inuu shido telefishinka maadaama xulka qaranka Masar ciyaar lahaayeen maalintaas. Askarta oo wada xiiseynaya daawashada ciyaarta ayaa meesha ku soo xoomay, halkaasna waxaa ka bannaanaaday qolkii hubka oo aan cidna joogin. Markaas ayuu Ayman si degdeg ah u galay qolka hubka, halkaas oo uu ka qaatay 15 bac oo rasaas ah oo ay ku jireen 421 xabadood. Waxa uuna booshka ku xirtay dhexda, dabadeedna isagoo leh bismillaah ayuu dhaqaaqay. Markii habeenkii madoobaaday oo waqtigu uu noqdo gudcur, wuxuu ka baxay saldhiggii, wuxuuna ka tallaabay silsiladii birta ahayd ee xadka, wuxuuna galay dhulka ay maamusho Israa'iil. Wuxuu ku dhuuntay meel uu horay u qorsheeyay, meel la yiraahdo Nuqtad al-Meyd, birta dhimatay, meel u dhaxaysa buuro iyo dhagaxyo si aan loo arkin. Wuxuu si xeelad leh u doortay goobtan maadaama ay ahayd meel ku dhow jid laami ah oo baabuurta Israa'iil mar walba ay maraan, taasoo ka dhigtay in gaadiidka maraya uu si toos ah u beegsado. Qorshihiisu waxa uu ahaa markii gaari ama bas askar yimaado inuu marka hore dilo darawalka si gaarigu u rogmado, dabadeedna si degdeg ah u toogto dhammaan askarta saaran baska. Markii cabaar uu sugayay oo halkaasi ku sugnaa, Ayman waxa uu dareemay in booshka uu wato uu xoogaa culus yahay. Intuu islahaa iska hagaaji booshka, ayaa si kadis ah gaari ay wateen ciidamada Israa'iil hortiisa ka soo muuqday. Darawalkii markii uu arkay Ayman oo dhuumanaya oo layrku uu qabtay, ayuu isku dayay in gaariga si xoog ah u wado, balse Ayman ayaa si lama filaan ah uga soo booday dhagaxa gadaashiisa, wuxuuna ku furay 3 qasnadood oo rasaas ah, taasoo sababtay in darawalkii iyo askartii la socotay halkaasi ay ku dhintaan. Waxyar kadib waxaa waddada soo galay baabuur ay saarnaayeen 2 sarkaal oo ka tirsan sirdoonka Israa'iil, kuwaas oo watay qori culus oo loo yaqaano Fikres, iyagoo aan ka warqabin halista taagan. Ayman waxa uu si degdeg ah ugu dhaqaaqay dhufays dagaal oo xagal 45 digrii ah, wuxuuna ku furay rasaas toos ah oo uu ku beegsaday, taas oo sababtay in halkaasi uu ku dilo 2 sarkaal. Markii dambe maamulka Israa'iil ayaa qirtay in mid ka mid ah 2 sarkaal ee halkaasi lagu dilay uu ahaa taliyihii hore ee xarunta Dimona, oo ah goobta ugu weyn ee dalkaasi ku farsameeyo hubka nukliyeerka, taas oo dhacdada u yeelaysa miisaan siyaasadeed iyo mid militari oo aad u sarreeya. Daqiiqado kadib, baskii ugu horreeyay ee askarta Israa'iil ayaa yimid, waxaana halkaasi ka bilowday weerarkii. Ayman isagoo aan ka waaban ayuu si toos ah u rasaaseeyay darawalka iyo askarigii ku fadhiyay kursiga hore, taasoo sababtay in baska uu rogmado oo uu ku dhaco dhagax weyn. Aymanna wuxuu markiiba ku booday gudaha baska, halkaas oo uu ku faaruujiyay 2 khasnadood oo rasaas ah. Kuwii badbaadana way dhaawacmeen, inta kalena halkaas ayay ku dhinteen. Daqiiqado kadib, goobta waxaa soo gaaray baskii labaad oo ay saarnaayeen saraakiil militari. Markii ay maqleen dhawaqa rasaasta, darawalku waxa uu arkay in baskii hore uu rogmaday, sidaa darteed isla markiiba waa uu gaabiyay xawaaraha si uu uga jawaabo xaaladda degdegga ah. Ayman waa uu fahmay in haddii ay baska ka soo degaan ay difaac geli doonaan oo uu lumin doono xakamaynta, sidaa darteed waxa uu rabay in dhammaantood uu ku wada hayo hal goob. Markaas ayuu ku fakaray xeelad cajiib ah. Waxa uu iska dhigay mid dhaawac ah oo ka soo baxay baskii rogmaday, maadaama ay habeen ahayd, nal oo kaliyana uu daarnaa, mana aysan garanayn in askarigan uu yahay mid Masaari ah ama mid Yuhuud ah. Markuu baska u soo dhawaaday, Ayman waxa uu si degdeg ah u furay rasaas, isagoo bartilmaameedsaday darawalkii iyo ninkii hore fadhiyay. Daqiiqado kooban gudahood waxa uu galay iska horimaad toos ah oo uu la yeeshay 7 sarkaal oo saarnaa baska, isagoo adeegsanaya 7 khasnad oo rasaas ah ilaa uu dhammaantood halkaasi ku toogtay. Isla markii uu kor istaagay baska, wuxuu arkay ninkii askariga ahaa ee ciilka iyo carada baday oo ka mid ahaa askarta saarneed baska oo dhaawac ah. Kadibna waxa uu ku faaruujiyay rasaas tirabeel ah, kadibna waxa uu la dhacay rasaas tirabeel ah oo u muuqatay cara burbur. Warbixinta meydka askarigaasi ayaa xaqiijisay in 16 xabadood lagu dhuftay, 11 ka midana ay uga dhaceen wadnaha. Howlgalkii markii uu dhammaaday, warbixinta rasmiga ahayd ayaa xaqiijisay in 21 sarkaal iyo askar Yuhuud isugu jira
lagu dilay howlgalkaasi halka 20 kalena ay ku dhaawacmeen, taas oo muujisay baaxadda khasaaraha weerarkaasi loo geystay ciidamada Israa'iil. Hase yeeshee, Ayman markan waxa uu wajahay caqabad kale. Sidee ayuu ugu noqonayaa dhulka Masar? Waxa uu si buuxda u qorsheeyay hubka, rasaasta, dhismaha jirka iyo saaminta, balse weligiis kuma uusan fakirin mana qorsheyn inuu dib ugu laaban doono Masar. Waxa uu filayay inuu ku dhimanayo howlgalkan isaga oo ku sugan gudaha dhulka Israa'iil, balse doonista Alle ayaa ka sarreysay wax walba. Markii uu goobta ka dhaqaaqay, waxaa si lama filaan ah u soo gaaray diyaarado helikobtaro ah iyo gawaari ciidan oo Yuhuud ah. Ayman isaga oo fursad yar haysta ayuu si xawaare ah u orday, isaga oo go'aansaday in haddii uu dhimanayo uu ku dhinto dhinaca dhulka Masar, si Israa'iil aysan u qarin jabkooda ama u qaadan xuquuqda dhacdada. Intii uu baxsad ka socday, waxaa lagu furay ku dhowaad 950 xabadood oo ka imaanaya diyaarado helikobtar ah iyo gaadiid ciidan. Ayman waxa uu isku qariyay dhagax weyn, isagoo Ilaahay tala saaranaya ayuu haddana mar kale u orday dhinaca xadka Masar, iyadoo xabaddu sidii roobkii oo kale ay u daba socoto, inkastoo xilli mugdi ah lagu jiray, ilaa uu dib ugu laabtay dhulkii Masar. Helikobtarka iyo gawaarida Israa'iil waxay uga laabteen dib. Ayman waxa uu isu dhiibay ciidanka Masar. Laba arrimood ayaa si cad looga arkay kiiskii Ayman. Dhinaca gudaha ciidanka Masar, saraakiisha iyo taliyayaasha waxay u muujiyeen farxad iyo maamuus, iyagoo u aqoonsaday astaan geesinimo. Taliyaha guud ee gobolka dhexe xitaa waxa uu u yimid si uu ula kulmo, isagoona ku yidhi, waxaan rabaa inaan kula galo sawir si aan mustaqbalka carruurtayda iyo kuwaan awoowaha u ahay aan u tuso, isagoo ku faanaya inuu madax u ahaa askari geesi ah oo sharaf u soo horseeday Masar oo dhan. Laakiin dhinaca kale, markii la eego sharciga ciidamada, Ayman waxaa loo arkayay inuu jebiyey nidaamka ciidanka, maadaama uu hubka si qarsoodi ah ugala baxay qolka rasaasta isagoo aan haysan ogolaansho. Fal dembi ah oo ciidan ayuu ku dhacay, inkastoo uu noqday halyahay uu qaranku ku faano. Markii la soo taagay maxkamadda, jawiga waxa uu noqday mid dhammaan indhaha dadka ay ku hayeen Ayman. Saraakiisha, garsoorayaasha iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha maxkamadda waxa ay muujiyeen sharaf iyo cizi u muuqday inaysan qarin karin. Xitaa markii maxkamaddu weydiisay taliyaha su-aasha koowaad, maxaad ka leedahay falka uu sameeyey askarigeena Ayman, waxaa la dareemi karay ixtiraam iyo qadarin ka muuqatay wejiga madasha uu ku sugnaa. Taliyaha waxa uu ka jawaabay, mudane xaakim, waxa uu sameeyey waa fal geesinimo leh. Waxaan jeclaan lahaa in anigu aan sidaas sameeyo, laakiin ugu dambeyntii sharciga waa loo adeegsaday. Ayman Maxamed Xasan waxaa lagu xukumay 12 sano oo xabsi ciidan ah. Dhacdadan waxa ay dhacday 1990. Ilaa iyo haatan Ayman waa uu nool yahay, waxa uuna ku sugan yahay sida la sheegay dalka Masar. Waxa uu dhammaystay xabsiga, waxa uuna si caadi ah uga sii mid noqday ciidamada, kadibna noloshiisa ayuu watay. Dhacdadan waxa ay ahayd mid aad u weyn. Markii Ayman la weydiiyey dhowr marna, waxa uu sheegay inay sabab u ahayd caradii uu ka qaaday askariga, kadibna caradu ay sii laba jirbaarmatay kadib markii masjidka barakaysan ee Qudus lagu laayay shacab muslimiin ah oo Falastiiniyiin ah oo aan waxba galabsan. Waxay ahayd dhowr duulaan oo gardarro ah, walow markaasi laga soo laabtay dagaal xooggan oo ay Masar ku jirtay. Haddaba sheekadii Ayman Maxamed Xasan halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. Haddii aad halkaan la soo gaartay, fadlan waxaan kaa codsanayaa muuqaalkan inaad like garaysid. Mahadsanidin.